Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran janalka. Waxaan duubi doonaa maanta timaha daata, timaha qalalka ah iyo timaha jajaba. Maxaa lagu daaweeyaa maxaa la saliid maxaa u isticmaalay shaambo maxaa u isticmaalay kareemooyinka loo isticmaalo haddii oo nafaqada jirkaada yarta oo kale kiniin noocaha qaadahay sharabo noocaha qaadahay inta muuqaalkan kusoo koobi doonaa marka soo dhawaada. marka koowaad tinta horta hore maxaa lahaa baabuusi doonaa markana la socda qodobo oo kala qaadi doonaa tan koowaad oo ah shaambada tinta ku dhaqaysid waa inaad ka fiirisaa maadada loo yaqaan sodium sulfate inay ka maran tahay rabaa isin ku jirin shaamboga isticmaalaysid sodium sulfate kana ayada keento jajabka iyo qaleelka iyo daadashada tinta ayada keento maadada loo yaqaan sodium sulfate ka waa in tan koowaad oo ah shaambada isticmaalaysid waa inaad ka fiirisid maadada loo yaqaan sodium sulfate ee free ka tahay isin ku jirin tan labaad waxa waaye in isbuuciiba 2 maalin aad dhaqayd ama markay ugu yar tahay markay ugu badan tahay aan dhahay markay ugu badan tahay isbuuc 2 maalin aad dhaqayd hadii qof madax dhaqashadiisa badan tahay aad tahay waa inaad kontrolshaa oo isbuuc hal mar ka dhigi karto kale way fiican tahay hadii aadan hal mar ka dhigi karin oo kale inaad isbuuc 2 mar ka dhigtid marka dhaqaysid waa inaad biyo qabow ku dhaqdid maxaan lahaa biyo kulul ama khandiir ah iska ilaalisid oo biyo ku dhaqaysid biyo qabow ah ayna qadaan qodobka xiga waxa marka tinta biyo qabow ku dhaqid inaadan hore ka shalayn aad sugtid ilaa ay muddo 2 saacadood ah si tinta ay u qalasho 2 saacadood kadib aad shalaysid laakiin tinta qoyna daatira waa shalayha daadashadeedii badahayso in daadato marka waa in muddo 2 saacadood aad sugtid inta ka qalaleyso hana dhihin waxa uu isticmaalaa maxaa la tinta caadi oo qalajina oo geedkan gabdhaha isticmaalaan oo korontada la gelinayo ku qalajiha taas kaas asaga wuxuu sababa jajabka tinta iyo daadashada timaha inay bataan oo sababa labadaas oo sababa marka inaan taa kaas aadan isticmaalin muddo 2 saacadood ahna aad sugtaa marka madax dhaqatidoo kale in tinta ay qalashaa qodobka xiga waxa waa in bishii 2 bil hal mar tinta aad jirtid si korriishadeeda dhirkeeda u fiicnaado in bili bar ama 2 bil hal mar aad jirtid oo kale qodobka xiga waxaan ka dhigaynaa qofka inuu cuntooyin isku nafaqo isku dheelitiran oo qaato marka hadii aadan sameey karin in cuntooyin nafaqo isku dheelitiran ay qaatid oo kale waxa la sameyn karaa ilmaha markii 2 sano ka weyn yihiin oo kale waxa loo isticmaali karaa 2 sharabo oo la yiraahdo sulfate xadiid iyo phosphate xadiid 2 sharabo laha ilmaha loo isticmaalaa oo cunuga markuu 2 sano ka weyn yahay kala 5 sent laga sii hayo markuu 6 jir ilaa iyo 10 jir intuu dhaxeysana 10 sent oo ka qaadanayo hadii qofku qof weyn uu yahay kala sida maamada ama gabdho waaweyn oo kale ay yihiin oo tintii daadashadeedii jajabkeedii iyo qaleelkeedii oo badan yahay kale waxa loo isticmaali karaa wixii qaadan kara kiniin loo yaqaan Bantogar capsule kana kale ma qaadanay maalinta hal xabo kale maxaa lahaa kareemooyinka oo noocyada kareemooyinka isticmaali karto oo fiican waxa waaye 2 kareem mid waxa la yiraahdaa Fifidol kareem iyo Marvel kareemkan ayagana u fiican yihiin jajabka iyo qaleelka iyo daadashada u fiican yihiin waa Fifidol kareem iyo Marvel kareemkan saliidaha kale marka ugu dambeysay ay maano kale waxa ugu fiican sida loo yaqaan arganka ayada waa qaali inta badan arganka laakiin waxa raqiis oo qofku uu isticmaali kara taas hadii qaali ku noqoto kale saliida looska iyo saliida qumbaha ayadana u fiican yihiin tinta oo qaleelka tinta oo kale way qoyaan jajabka iyo daadashadana way ka yareeyaan timaha marka kareemadooyinkan kale waa Marvel kareemka Fifidol kareemka saliidahana waa argankaas iyo saliida looska iyo saliida qumbaha marka waxa rajaynayaa inay ka faa'iideysatiin soo dhawaada hadii aad ku cusub tahay subscribe noo saar hadii familka ka tirsanada hore noola joogtane share iyo maxaa lahaa like noo roonaaw si anaga dhiirigelin ugu noqoto dadkan ay u sii gaartay kaga faa'iideystaan marka soo dhawaada waa mahadsantihiin